waxaan halkan tacsi uga diraynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuum Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi suugayahankii weynaa ee Soomaaliyeed macallinkii weynaa ee muddada badan soo barbaarinay wax soo barayay ummadda Soomaaliyeed mufakirkii weynaa ee ummadda afkaartiisa iyo oraahdiisa ku hagayay u tilmaamay waxa saxda ah baadilka iyo waxa xunna ka dhidhii jiray walaalayaal taariikhda suugaanta iyo afkaartii soo banayd ee uu xambaarsanaa Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi mid aynu halkan ku soo koobi karno ma muddo dheer ayuu waqtigiisa naftiisa iyo juhdi badan u geliyay si uu ummadda Soomaaliyeed ugu adeegi lahaa xanuuniye ayuu ahaa wuxuu ahaa ruux ay dhammaan da'yarta markaas soo kacaysa iyo ummadduba ay hiigsan jirtay oo role model u ahaa halkan kuma soo ururin karno suugaantiisii baaxadda weynayd wuxuu ku dhashay gobolka Togdheer laakiin waa nin dhammaan 18 gobol iyo deegaanada Soomaaliyeed mandaqada iyo meel walba Soomaali joogtaba laga yaqaanay u malayn maayo guri Soomaaliyeed oo buuga Hadraawi aan oolin inuu jiro waxaan halkan ka soo qaadanayaa gabay kamida maansooyinkiisa oo la yiraahdo Hoobal oo 7 hore uu mariyay oo uu leeyahay tuducyada uu ku soo marinaya kamid tahay kuwa iyo hanweynow marka aad hooysaan hogga iyo banaysaan waa in lay hogtaayo hiil waxaan ka geli jiray ama hoo ka tari jiray hingel lagu tixgeliyaa hadhow lay xasuustaa Hoobal la yiraahdaa waxa hubaala in uu marxuumku yahay nin si weyn loo xasuusan doono la xusi doono bahda dhaqanka iyo waxbarashada suugaanta guud ahaan ummadda Soomaaliyeed si weyn bay u xasuusan doontaa waxaana ugu muhiimsan oo ka codsanayna dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo islaamkaba inaynu u duceyno marxuumka inuu Ilaahay jannadiisa ka waraabiyo dadkii uu ka baxayna eheladii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaanu leenahay samir iyo iimaan taariikh wanaagsan buu ka tagay rabbina waxaynu uga baryaynaa inuu jannooyinkiisa ka waraabiyo